saaka waxaa farxad noo ah aniga iyo wafdiga ballaaran ee aad u jeedaan inaannu aanbabaxayno ka qaybgalka dacwaddii badda ee u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya dacwaddaasoo maraaxiil kala duwan soo martay ilaa 2014 qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd dhageysiga dacwadda ku salaysan qoraalka iyo cadeymaha waxa ay soo dhamaatay 2018 December 2017 iyo 2018 shaqo aad u ballaaran baa laga qabtay waa wax dadkoo dhammi arki karaan oo maxkamadda websaydadeeda ku jirta idinkuna indhihiinna aad ku arki kartaan markaa dhageysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo cadeymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019 2020 iyo ilaa hadda waxa aynu sugaynay in Soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda afeed taasoo halgan dheer iyo doodba kadib mas'uuliyiinta dawladda ee u xil saaran madaxweynaha xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo sharci yaqaanadii iyo qareennadii ka shaqaynayay aakhirkii ay maxkamaddu go'aamisay 15 bisha March oo aynu hadda ku jirno in la dhageysto doodda afeed ee dacwadaha maxkamadda arrintaas hadda ayaan u aanbabaxaynaa mas'uuliyiintan u jeedaan waxa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharci yaqaanadii iyo khubaradii kale waxaa dhageysiga dacwaddu uu ka koobnaan doonaa laba hab maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online idinka qudhiinnu maxkamaddu way furan tahay waxaan idinka codsanayaa idinna soo jeedinayaa maadaama halgan umadeed iyo halgan shacab ay tahay dacwad taariikhiya ay tahay hal taaka dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15 16 17 waa la nasanayaa 18 iyo 19 shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gashaan si live uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhageysataan oo u adorestaan oo u faaqidaan kalsooni weyn baanu qabnaa ilaahay idamkiisa inaanu ku guulaysanayno 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhageysiga dacwaddan la isugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka COVID-19 2019 saddex goor baa dib loo dhigay mar afraadkii waxaan ku adkaysannay annagoo kuwaa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha Allahu saakaannu aanbabaxaynaa 15 ayay bilaabmanaysaa dhageysigeedu ilaa 19 waa ay socon doontaa guul baan rajaynaynaa halganka taariikhiga ah ee wadaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno dhulkeenna ugu jirno baddeenna ugu jirno kaalinta media haddaad saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dawladdaba idinkaga aadan ee aydin ku leedihiin waa inaad ka qayb qaadataan guul baan inoo rajaynayaa waa mahadsantihiin maalin walbana warbixin waa idin soo siin doonaa insha Allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh